waxaan ku leeyahay madaxweynow ra'iisul wasaarow waxaan idin leeyahay nimankan idinka dhuushay nimankan dhuminta ka daaya war nimanka idinka dhuushay dhuminta ka daaya xaaji axmed sheekh muxudiino 9 jira oo ururkii leegada ah oo xilka soo qabta dowladda adan cabdullaah cusmaan dowladda man mushaarka qaato xilka soo qabto la wada og yahay wuxuu leeyahay Soomaaliyaan ceelbira lagu ridi walaalayaal ceelbira lagu ridi idinkuna dadkan ha dhuminina madaxweynow dalka farmaajo ra'iisul wasaarow dadkan beenta loo sheegayaan la dhumin oo waxay yihiin ha loo sheego aniga iga ma afyaridiin aniga qof xabad kama rabo ilaahayaan wax ka rabaa diimaan leeyahay darajaan leeyahay deeqan leeyahay dowladda milan qeylaayo kumi kama rabo wallahi waxaan rabaa dowladnimo waxaan rabaa dadnimo waxaan rabaa midnimo walaanimo Soomaaliyeed oo adduunka iyo dalka isku xiranaan rabaa ilaahayna way la ogyahay alxamdulillah rabbil caalamiin aniga saasan ku maslaxaya kuwa meelaha iska daba qeylaay waxaan u arkaa mid qarannimada Soomaaliya lagu dulmihaayo oo ra'iisul wasaaraha lagu dulmihaayo oo madaxweynaha lagu dulmihaayo oo baarlamaanka golaha shacab lagu dulmihayaan u arkaa waa been waa riwaayadi shabeelnaagood oo Maryam Mursali Cabdullaah Raaga talawil masalaya inay la mid tahay waa riwaayad waa been yaan la yeeli madaxweynuhu ha yeeli ra'iisul wasaaruhu ha yeeli baarlamaanka golaha shacab oo adinkuna ay saddexdiina dowladda xukuntiin anigu taasaan ku talaa 9 jiraan ee taladeed aan la qaato shacabka Soomaaliyeed midnimo looga baahan yahay walaaltinimo looga baahan yahay wadajir loo baahan yahay gacnaha inay isqabsadaan sidii maantii hore loo baahan yahay wixii kala qoqobaya ee kala goboleeyahay ee kala qabiileeyahay ee qabyaalad ku talaaya shacabka Soomaaliyeed hees ka qabto shacabka Soomaaliyeed wixii qabyaalad iyo qabiil iyo qurun ku talaaya iska qabdeen midnimo Soomaaliyeed wadajir Soomaaliyeed dowladnimo Soomaaliyeed midnimo Soomaaliyeed walaalnimo Soomaaliyeed walaalayaal saasaan idinka codsanaya idinkuna waa mahadsantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh